bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaanay miyaan ku warramay weli qof bawaayihiisa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaanay miyaan ku warramay weli daawadayaal waa idin salaamaynaa meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa maalin kale oo qurux badan hadday habeenku tahana waa habeen kale oo qurux badan iyo muuqaal kale oo xiiso badan daawadayaal mar waliba waxaan ka codsadaa inaad subscribe waxa adigina ay sabab gareysaan aad u mahadsantihiin laakiin marar badan waxa iga barateen anigu halkan kaligay fadhiya laakiin halkan ma ahayn background-ka ay iga barateen waa meel kale maanta waxa ila jooga Cabdirasaaq. Thank you. Cabdirasaaq soo dhow. Waxaan umaleynaa markii horeysay oo channelka ka soo muuqanayo. Aad iyo aad waa markii ugu horeysay oo Cabdirasaaq oo channelka ka soo muuqanayo. Insha Allah marar badan waad arki doontaan isagoo hortiina ka soo muuqan doona. Daawadayaal waxaan rabaa marka inaan idin sheego ama aan idin la wadaago inaan bilaabi doono ama aan bilaabayno saacan aan u fadhino barnaamij cusub oo la magac baxay qiso iyo qosol. Intii waa barnaamij in badan aad kala socon doontaan Saciid Galeer waa barnaamij aan ku soo qaadan doono qisooyinka iyo sheekooyinka kuwooda ugu dambeeyay haddii ahaan lahayd qiso jacayl iyo qiso kaftana ama midooda ugu hadalhaynta badan yahay arrimaha bulshada ama baraha bulshada loogu hadalhayn badan yahay barnaamijka wuxuu inoo ahaan doonaa barnaamij joogto ah oo wajiyo badan aad ku arki doontaan ama idin soo muuqan doono barnaamijka sida sheegtay waa barnaamij cusub barnaamijku waa sheeko iyo qiso waa sheeko iyo qiso barnaamijkan kaliya ma ahan haddii la yiraahdo waxaan soo wadnaa barnaamijyo badan oo tiro badan ayaan soo wadnaa oo kale marka channelka in barnaamijyo badan uu ku soo kordhayo la balaarin doono qaybihiisa kala duwan ee haddii aad ugu baratay reaction kaliya hadda kadib kala soco barnaamijyo kala duwan oo ugu horeeya barnaamijkan sheeko iyo qiso barnaamijyo kale oo soo socda iyo riwaayado musalsal ah ayaan ka xidhnaa barnaamijka caawa inoo soo wata marka daawadayaal yeenan dheeraynin oo aan hadalka idinku dheeraynay waxaan rabaa qisada ugu horeysa waa qiso qosol ah inaan iraado Cabdirasaaq intii qisooyinka aad u farbadan yihiin sheekooyinkan sidoo kale haddii ahaaleed qiso ani horta sheekooyinka caawa idin soo xulay malaa dadka qaarkood waxay soo dhihi doonaan ninkan ma marqaama waan filaa dad qaarkood inay commenti ka soo bixin doonaan sheekooyinka caawa ugu badan ahayo waxay tahay sheekooyinka marqaanka iyo mararka qaarkood ma ku tuuratay waan filaya inay dhihi doonto Saciidow laakiin sida reality-ga ah ma ahan ma marqaamo laakiin sheekooyinka kuwooda ugu xiisaha badan ugu qosolka badan ugu xamaasada badan waa kuwa marqaanka ani ahaan waan taageeraa heesaha marqaanka kabanka mararka qaarkood waa ku tuurataa kabanku waa ku tuurtaa for example barnaamijka kaacisho oo kale iyo barnaamijyada lamid ah aadan u taageeraa okay ma noo markana soo qisada ugu ka hormarina sheekada sheekooyinka idinku sheegay sheekooyinka marqaanka aadan u xiisaa hadda ka hor baa waxaa jiray nin aad u marqaamo wuxuu jeclaa mar waliba inuu gurigiisa ku marqaamo gurigiisa inuu qofka markuu marqaamo wuxuu jeclaa meel jawi degan inuu ku marqaamo hadda qofka dabeecadooda kala duwan dad waxay jecleen bulshada inay soo galaan asxaabtooda la marqaamaan ee sheekada iyo marqaanka isku wadaan laakiin ninkan waa ka duwan yahay dadka kale iyo buuq iyo qaylo mar ma jecla iyo qaylo ma jecla inta caleentaas ay hortaan guriga waxaa ku nool bisad ama yaanyo qof walba sidoo bisadaa ku nool ama yaanyo qof walba suu u yaqaan mar walba markuu marqaamo ayadoo asoo fadhiyo oo marqaankii cunaayo oo xaaladda meel dhex u marayso waxaa imaanaysa bisadi maray bacda ka tilaabsatay iyo maray caleen la orday iyo maray hoos ka jiro adiga marqaankii ka khastaa ninkan waa dareemi kartaa meel dhexe maraysa markaasoo kale haddii lagu taabtan waa dareemi kartaa xaaladda ku sugan tahay ninkan wuxuu go'aansaday in yaanyurtan uu qaado magaalada uu ka dhex bixiyo marka wuxuu go'aansaday inuu qaado intuu gii doonaa adiga sheekada ka hor dhicin asxaabtana ka hor dhicin wuxuu go'aansaday inuu bisadan ama kulaashan uu iska qaado wuxuu go'aansaday inuu jawaan ku rido xaafado kale inuu geeyo meel kale inuu geeyo wuu qaaday xaafado kale ama meel kale guri ka fog uu geeyo sidoo islaha bartookadan si fiican u marqaami doontaa xaaladda ku saxmi doontaa jawi degan wuu fogeeyay guriga ku soo laabtay intuu guriga uu soo socday ila bisadu xaafada ku kortay
ninka guriga markuu imaaday wuxuu ka warhelay bisadii kaga horeysa bisadii kaga sii horeysa guriga oo tacab khasaar markuu islaha fariiso caaw si istiraah si baashaale umarkaan sidii caadi ahayd mukulaashii hadin imaatay si fiican waa ku heystay taageertay markii labaad wuxuu ku aansaday inuu magaalada dhanka musaafir mukulaashan magaalada dhanba ka saaro magaalada dhanba ka musaafir maxaa dhacday markii uu go'aansaday go'aankii labaad oo ah inuu magaalada ka musaafiriyo mukulaashii sidoo kale din jawaanka ku riday magaalada hageey meel ka baxsan oo ku geey ninkii xaafadii garan waayay xaafadiisii kale inuu soo laabto raba meel ka baxsan la geeyo isla mukulaashii xaafadiisii kale xaafadii garan waayay xaafadii markuu garan waayay wuxuu dhahay xaaskiisa oo guriga oo joogta wuxuu dhahay naahib laa yahay guriga waa ka dhumee bisadi ma timid beraa wuxuu ka wadaa guriga waa ka lumee bisadi ma timid bisadi haddee joogto igu dhib talaafka ay soo doontay xaafadii kale والله بالله ما قصة عجيبة كودي شيء كويك مرقانك وكون وحساب بدن وجعل عيد بدن عن أخرسته وحنا اللي يريم تغانا سومالي الحكمة مع هذا مكلال ماشي مع أي معلول وقولي مثلا مركب مكلال شو ماشي قرقي جوكت قرقي تكمل دمتها مركب مستوى لاني كان بالسكفو جاي أسيجا قري كلهم أسيجا قري كلهم مركا شكل وح أملنا شكل شكل أصلا قصة عجيبة وين شكل حكتة دنك هذا وما سنت يا عبد الرزاق قدي أنا وصوتته قصة حكتة واحد جري قضية يعني رمية أمر ربادي ذو كسرية قنان قدكنا كفر السودان كفر السودان واتقنا السودان كفر السودان ولقي سنة هالكاس يجوبي maalmaha kamida ay waxa uu go'aansaday in uu soo xajiyo oo xijka aado si fiican ninkaasuna weligii yani halkaas uu iska joogay dhulka miyiga ah ma xajinin macnaha yani xitaa magaalooyinkii waxaas nin yaqaanimaha waa nin iska reer baadiya reer miya si fiican markii uu tagay magaalada Makka Sacuudiga markii uu tagay ayaa gaariga uu saarnaa ayaa shil galay bismillah kadib ninkii kooma ayuu galay نعم حسوا ديو بيجي هوار عادي ودا سجده وبس كسر ده وقصوا ليش يكون بعض أنت عرفت ده نيجي كوما أيوة قلي مركزو أدقيس واسون حي أيام عبارة كتاعي أيوة سون حي أسوى حو أركيد وحا أسوى لي أركيد يسبجالو بيجي مقطع إنه حكي إنه أدور حكي يسكب بدي السالة مركو حو أركيد السريرو عد هذا وحيوان هذه ما مش دون آخر ما جت نقول بريسنا مركز يرني ونينكي وادي متويري أو جنة أيات كجرتها مركو سريري على عداء يقول كي قرعة بدنا يمركو أركي وادي متويري سيري أو إيش كي واحد قشي أهل جنة هاي ومحيرك بعد وحاول ما تجبر كم نيرسنك نيرسنك أما كالكارس لو يقانو وعسبتان كشقي مركزو قبل مركو فيري وحبيري تاني ما بروح حور العين تي وأكو حور العين تي يصير هذا أنا أتقنا سوس سودان دتكو بس وده عاد درس كسيد قف نيرسنك وحلو تقدر عدان هذا عدان هذا أنا ويكد دوين وضل عسك قرقر بدل ما مركا أنت ويا ربوس شيء بيتري أدير مجاعة شيء كلا صوب ده أضيق أدير مجاعة باليري السجو قص ليا أيوري مركي أنا أدونك جوج جري محل أورنجري أبو بكر آخرهم كان جوكتن أنا قايل أقول تسقى ملأ آخر جوجو أيوة كان جوج جري محل أورنجري جري أبو بكر مركا waxaan rajeynaa insha Allah qasasiinay runtii waa sheekay aad u qiso badan maraniku wuxuu dhahaa sanadkan xajki waa dambi iska soo dhax waa ahlu jinnatu isrinka marka ku horeelay saarada nin saaran aakhir joogo jannada inuu ku jiro jannada neersankan wuxuu u maleeyaa xeer ruuxant xeer ruuxant uu maleeyaa markaas uu markii adduunka joogi jiray Abu Bakar jiray okay qisaas dalka ku dhaw nacdasa والله قصص آد وبنتها صهر وشيء قصوين كعاو آد وفربدين قصة كلو كدرنتها رتي قصة وحيد قصة آد وعجيبة قصوين كعاو أكوها وقصوين مرقاني كوه بحساب
dadku waxaa la yaabi doonaa commentiga soo qori doono ana hore afaafna waa u sheegtay kulli waa hadda waa idin sheegtay in lagaa jafi doono in lagaa jafi doono balse ma lahan sheekada xigta waa sheeko marqaane nacabtooya xaaskiisa ama ooridiisa ama marwadiisa way foolatay nin cabtooya ayaa marwadiisa foolatay 9 saac bar foosha kusoo booday waana xilli ugu xun waa xilli macalinkan waa fadhiyaa aad iyo aad waa taagan yahay waa sugaa kubadda salligu fadhiyaa aad iyo aad 9 saac bar markay tahay qoftii hala geey meeshii isbitaalka ama meesha u dhow markaas 9 saac bar markay ahayd waxa u dhashay wiil ilmahana waa sida caadada ee markay dhashaan waa qaylo badan waa qayliya sax wiilka sida u qaylinaya guriga lagu soo celiyay wiila u dhashay markaas uu wuxuu dhahay sida u fadhiyo u soo baraarug waxa dhaqaalaad nigada ilaa booba wuxuu isleeyahay nin weyn waa ninkan muxuu la qaylinaa cama marka canugii la hadlaya hadda dhashay oo qaylina waa waraade qaylan nigada niyo adigoo sidaa u yar 9 saac bar haweenimo socotaa marka saacada ay baadata markaad weynaato الله مركز ويناتو يريم قصة عاد ما قصة إيمان دون مركز هذا هو يرجع حلقة ساعتها و8 ساعة ساعتها أخيرا وقدرت والله مركز ويناتو نقص عنه إيمان دون تأوسيد إيمان دون تحارة هذا ما هو معقول وفكر يعني فكر وافي لكن فكر خالد يسكره واسكت خالد لكن هو شيء كوين كمركان كوه وحساب عادي عبد الرزاق وعلي ما دام شيء كوين كوبتين مرقان الويدين سواش سووا دوجة ما كم ويديني أنا دنكاس وكير اللي حنا شيء جاي ما يودا ما يا عبد الرزاق ودي عن سوق عطوا قصة حكتة واتقنا دمر كويس كم مسير بدين أنتيات مركا قاركود مركي مسير سيهين لا يقولوا مسير دون كلا يكجران مركا جبر مسير سن يا وحا ويمدي نين سفرية وحا ويري وحان ولا البيئة عن عبان رأي يورابي وانقف سفر إلى وسود عليه أو وسود عليها markaas gabadhii waxay isteeyeen kan waxa uu ku weydiinaya odaygaagi masir meel xun ka tuura masir ilaa meel xun ka tuura mugtay waxay jir waa ka aqalka jiifa maanta oran halkaas uu jiifay biyaha u tilmaamta bi hada ninkii inoo saaxiibkeed ninkeed inoo weydiinayo malaysam masirkaas aska tusay adaba sheekano hay markaas ninkii asoo yaaban yiri maxaa waxaad weydiinayso maxaa waa maxay walaal yiri markaasi waxay mooday inuu yiri waa arin la yaab leh yaani masarkayga guuxay moogtay waxa uu ninkan sameeyay wax la yaab leh inuu yiri bay u qaatay si fiican hada fahmay markaasi waxay tiri anigu tabtaas aan haystaa wala isku baqayaan labada wala isku baqayay qofka wax kasto loo sheegay yaani waxa ka soo dhex baxaya ninkaasi arimihiisa iyo soo marka أزاقو قصة أنا قصة إسكيرة قابل إسكيرة قابل أنا ناقي نقول مسير هذا مسير حسن أقل كذا له كوي كات أقل كذا ما كوي كات نفته أنا ما مثلا شيء كوي دمر مركب أنت المسير ده نفته الكوي حتى أدي مركب أنا كوي دي عبد الرزاق هذه يوم جت قصة يرو هذه قوة سابسون أما أركتي وقصر بدل أما صح كويس دي ما نقولت إن البرنامج كوي كلام برنامجكم بالله ما wax ma iska taaban kartaa oo yiraahdo walaal qisooyinku waa iska badayeen qisaan igu dhacday qisaan ii sheegay ama qisaan idii ku arkay badeetay adigu mid uun laakiin waxa jeclaan lahay caaw ina dib noogu dhigto maadaama barnaamijka bilow u yahay dadkana su'aalo kale ka sugaa iyo commentiga barnaamijka dib noogu dhig laakiin ayu bis qasada kale ma soo qabo xigta sheekooyinka caawa ay idin hayo waa sheekooyinka marqaanka iyo ku ciyaalka xaafadda جعل يا مصير كواس دبا ودقتي كواس دبا ودقتي سؤال شيء وديسني برنامج قسمك أدوك وصاب سنة دبا ودقن دونا ودم لها وأمرك ندام عاو ويا برنامج بلاو إن إذا كقصل سيرو هذيات حريف حياك حافظة أسوق لودر مركز الله عديو أنفارهو لين تنسوق كدو لين أسوق لودر لين أسوق لودر
xaafadu ku soo tagay way ila waalidka markuu wax ku diro waa doonaysa oo soo bixisa meesha loogu talgal markaas ka doonaysa hada suuq ay tahay iyo markii meeshaas kugu dhow aad ka heli karto adigu soo bax suuq iyo soo aad صح linti soo qaday inta loo diray uu soo gaday hadii 5 kun ahaan lahayd hadii kuushin ahaan lahayd iyo hadii $1 ahaan lahayd wixii soo gaday لين بدل نقول ولا معني السوق المسكت أنا سوق وديقه عاديات معني قلوك تأبح معلي قاصر معلي قلوك تأبح كان نروح ولا شن يتمن حب لينا هل من المود استاجيان بنتها من أنت كبح من قداش يسمر عاديات مد واسوعني سا معني كوا استاج مركز سود هاي مركز وحى الكليم وكهريان إلا سيسو عدن إلا يسقسك وانا لينتي markaas inuu istaago wuxuu dhahay kuwan guri waa yaqaanin leebi guri waa yaqaanin ila wadada marna kaga horeeyaan markaas uu dhahay kuwan guri waa yaqaanin iskaaga tagay gurigii aad war liimanka lagu diray adiga lagu diray wadada ku soo jira waa soo socda والله عيالك حافظ وسلام إذا وسيد بديل عيالك حافظ هذه لكن عرفتي يحيوان عيتاج مرقان كمركل لقى شيء كين عادي ما يعني أنا هذا بس شيء كلام شيء كين يهو بحد تذكر مرقان كباه because waa sheeko qosol badan markaas in xaaladaas asoo ku hadlay ugu sheega si reality xaaladu markaas ku sugayo ka hadlaysa sheekooyinka sheekooyinka waxa ku soo xigo ku ciyaarka xaafada kadib arrimaha jacaylka iyo waxa saas ugu gudbinayo okay digmada aniga intii hor imaata ayaa sheegi doona adigu waxa kala reereebo sidoo su'aalaha day weydiisay maxaa sheeko caawa adigu ugu dhacdo sheeko ama qisada ku qabsatay ani ku weydii baa u dhigtay نيو أرتا مركا سواش أدي وحكوا بس الماذا؟ ما كذا ويا بدنا. وحي ويا كذا ميد أدو لم يدا. ميد أدو بقول على حتى. أنا مثل قال شيء كي أنا ميد أدي. ما يتنوى واحد أنا جا يقول صابسن. أنا جا شخصيا يقول ما صابسن لكن واقص يعني دعادي أو مدوا صاحب كي يعني حمرتي. كو نص ده راح يسوق ينوي. مركا يركا صاحب كي جا وحوها حاصل. مركا مال ما كمية. يقول يزوج عزومي لو داني هم إيمو ونسرع علي بريجي وانتقني بريجي وحان تقني تي في شدي يحاسك شو داوني هذا واسكال بلاينا إلى وين أنا تي في منو جرجر أقول تي في عشان ما أنا ماسكت خانة دونك ديجيتال مخدي ديجيتال هاي مركز تي في عشنا حاسك يسافر لي ويداوني سفي يعني تي في قاعد يداوني كم تفاديها جوكا waxaa shidnaa marka oo videoga ka shidnaa yani TV ka shidnaa Sheekh Mustafa أنا لو حسبها فيلم إبوزي شدنا والله Sheekh Mustafa ka shidnaa markaasuu lahaa wacdi ujeedinaya waxa uu lahaa niyo waxa gabadha waxa loo guursadaa quruxdeeda lagu guursadaa maalkeeda lagu guursadaa ehelkeeda waxyaabo badan markuu intaa mariyay anigu saaban eed u fiiriyay هذا المشكلة هو غافير من هو مركز الكوري والله مركز قارقط إذا يدتين هذا كرسي مرك معكم كنتي مركا يعني عجبت ما يركا صاحبك يقول انت قصه انت سمسي دافيو داوديال waxaan soo gaarnay gunti iyo gabagabadii barnaamijka waxaan jecelahay inaad ka heli doontaan qisooyinkan wixii fikir ah ama talo iyo tusaale ah waa idinka dalbanina waxaan kaloo idinka codsanaynaa inaad noo sheegtaan qisada idinkugu qosolka badan inaad dhanka hoose nagula wadaagtaan qaybta commentiga ama WhatsAppka ama email ma just commentiga qaybta commentiga aad u mahadsantiin marka daawadayaal waa anigoo Saciid Galeer iyo Cabdirasaaq oo barnaamijka idin soo gudbinayni waana idin soo gudbin doonaa qayb badan oo barnaamijkan ka kooban yahay sidaas iyo amaanada بوايسا الليل ملك وابو وينو كلا فوقاني مياكو ورمي ولي بوايسا الليل ملك وابو وينو
kala fogaan miyaa ku warramay weli